qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadan Galxamar oo warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida SRTV u waramay ayaa sheegay in cabashooyin badan ay ka jiraan kuwaas oo la xidhiidha sida isgaarsiinta iyo sidoo kale leedka 24 saac oo haba yaraatee ka jirin degmadan. waxaan ka mid ahay bulshada ku nool degmada Galxamar waxaanu cabasho aanu ka nahay adeegyada asaasiga ah oo ay ka mid tahay solar systemka oo 4 sanana meesha taagan aan wax dhaqaajinayna aysan jirin 4 sano buu nala joogaa markii ugu horeysay naloo yimid waxa la yiri 4 bilood baa lagu dhameynaya haddana 4 sano ay maraysaa guryihii waa la dhisay oo waa dhisan yihiin asagiina waa la keenay wax adeeg bixinaya wax ka shaqeynaya midna ma jiraan taas waa midda kale waxa weeye isgaarsiin malihin habeenkii marka ay 2 saac tahay hadii xoogaa ay joogto bay tagtaa hadii gabaru dhiig baxayso qabalayaasha ku umusho ama baadiyaha ku umusho waxa weeye wax la iskula hadlayo isgaarsiin male waxaan doonaynaa waxyaalaha adeega ah oo ceelasha biyihii aan qodanay anagu waanu geelayaga iyo arigayaga iyo aan ku qodanay waxa weeye malahan bamka biyaha soo tuurayay waa daciif waxa weeye motorka laftiisii waa liitaa waxa weeye solarkii cadceedda biyaha dhalinayay male shidaalku waa nagu xun yahay dhaqaale aan haysano dhaqaalaha iyagii oo dhan waxaan gelin ceelkaasaan gelin wuxuu qodan yahay 330 mitir buu qodan yahay intaas waxaan qodaynay 1 sano iyo 2 bilood baanu kor taagnay xafiiska biyaha waxaan ka codsanaynaa inay waxa weeye noo soo dadaalaan oo adeeg bixintii ceelka noo samayn lahaayeen cooni iyo isku socod bulsho iyo wax qabad taas oo keentay inaan degmadan ka qodno 9 ceel oo isku tashi ku timid ceeshaas ilaa 5 ceel oo kamid ah ilaa iyo hadda way afxiran yihiin waxa ugu dambeeyay midkii shalayta lagu xarig jiray degmada Galxamar kaas oo loogu talagalay in magaalada laga biyo geliyo maxaan ku yiraahdaa ilaa iyo haddana wax biyo gelina ay magaaladu lahayn 10 sano ay center tahay ee degmo tahay degmadan 10 sano wax biyo gelina ma ay lahayn sidoo kale waxa aad iyo aad noogu liidata isgaarsiinta taasoo magaalada degmada gudaheeda hal anteena ku taala batarigiina waa dhacay oo wax maaragtay adeega malahan 10 center oo degmadu ka kooban tahay wax adeega malahan sida daraadeed waxaan ka codsanaynaa ma garanaysaa cid ay qusayso in maaragtay la kaga soo jawaabo baahiyadaas odayaasha Galxamar jooga anigoo kamida waxaan ka hadlahayaa baahida magaaladu u qabto dawladda wax qabadkeeda layr male oo hadda layr ma jiro 4 sano ayaa halka samsam waxa ka yaala solar la yiri waa la sameeynaya waliina ma soo gaarin solarkii guriga ku xareysan yahay aan yiri meeshina waa calaamadsan tahay 4 sanadood baana hawshaas wali taagan tahay anagu waxay ku maqan tahay hadda ula jooga ma hubno isgaarsiinto kale isku meesheetinko kale waqtiga dadku intuu saxan bay tagtaa hal saac baa tagtaa 2 saac waa tagtaa mar 3 saac bay tagtaa mar habeen iyo maalin baa la waayaaba isku dhan quality-geeda xagga hadalka oo kale iyo xagga way aad bay u jilicsan tahay labada qof ma qofna waa gelaysaa qofna waa ka soo jarmaysaa gudaha magaalada bal ka waran tuulooyinka magaalada hoos yimaada ma bale darwada muuqato oo centerka maba dhacayo 90% markuu gali waayo hal qof aa dhacaya meelo aysan kaba dhicin waaba jidhaa oo aysan gabigeeduba shaqaynayn waxa ugu liita ayada weeye degmada ilaa intee tuulaha hoos timaada 2 center oo degmada iyo 8 dabada way ma ka shaqeysaa marka qayb badan bay ka shaqeyn caris kama shaqeyso meegaagla kama shaqeyso dhul badan bay ka shaqeyn ama haday shaqeynaysana liidata darowda 90% ma dhacaysa 10 waa dhacaysa adigu siyaalahaas waxyiin waxaan u baahanahay waxa naga dhiman in la soo gaarsiiyo si haddaba aanu wax uga ogaano xaaladda guud ee degmadaasi ayaa waxaanu wax ka weydiinay tabashooyinka shacabka magaaladaasi gudoomiyaha degmada Galxamar mudane Maxamed Daahir Cali oo xafiiskiisa ku booqanay ayaa warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida SRTV u sheegay inay jirto cabashooyinka la xiriira isgaarsiinta iyo leedka systemka cadceedda laga dhaliyo runtii bulshada degmada Galxamar cabashada ay qabto nala wadaagtay waa sax weeyaan inta badan waxyaalaha ay ka cabanayaan bulshadu anaga lafteena gaab nagu ah waa xagga ateenka degmada Galxamar laba
degmadu waxay ka kooban tahay 10 santar iyo konton iyo saddex sabqabale ka kooban tahay ateenku wuxuu ka taagan yahay magaalada gudaheeda iyo waxa weeyaan santar la yiraahdo Dugub oo sanadkan 2017 laga fuliyay 10 santar oo kale iyo qabale sabqabale gaariya 40 ateen kama jiro runtii marka labadan taagana bulshadii ay u adeegayeen cabashadu waa soo aragteen inta badanna waxa ay ka cabanayaan waa xagga ku hadalka oo joogitaankeedii inay mar walba joogto iyo waxa weeyaan network oo waxa weey xagga internet-keena samaartay wax la yiraahdo aysan adeeg fiican bixinayn tan tigitaanka oo tigtigiiso waxaan la qabnay cluster bay isku xiran tahay wax la yiraahdo ateenku clusterka kulay cilad baa jirtay oo maartay nooga xariirsanay ciladaas xagga power system-ka ahaydoo teamka hadda way yimaadeen saakana runtii waxay keeneen xaalihii ka dhimanaa sida biyihii iyo kale inay ku shubeen acidkii biyihii inay ku shubeen bateeriyadii waxay noo sheegeen in ay meesha ka baxayso ciladii maartay in tagto ay maartay magaalada ka tagto ateenku sidoo kale waxaa jirtay bulshadu waxay ka caawinaysay waxa weeyaan solar system magaalada Galxamar solar system-kan waxaa dhulkiisa la wareejiyay 4 sano ka hor wax la yiraahdo kadib mahan baa dhulka wareejinay shirkad baa qaadatay qandaraaskaas hadda wax la yiraahdo gurihii qayb ka mid ah dhisan agabka waa la keenay oo solarkii wax la yiraahdo magaalada baa lagu dejiyo maartay ku rogan yahay in la isku xiro oo wax weeyaan shaqadii wax la yiraahdo dhaqaajiyo baarsan mar walbana cabashaas waan dirnaa oo maartay wax la yiraahdo kadib mahan iyo xafiis ahaan baa cid qoyska waan la wadaagnaa kulay xagga shirkadda qaadatay qandaraaskaas wax la yiraahdo gaab xaggeeda ka jira intaan soo gaaray saad ogtihiin baa bulshada degmada Galxamar waxay ku jirtaa bulshooyinka maartay aadka uga qayb qaata horumarka sida isku tashiga bulshada waxayna sameeyaan ceelal bay qodaan waxaa halkan degmada ka qodan waxa la yiraahdo 10 ceel 10 ceel oo ka qodan laba kamid dawladda Afriisay 8 kamidna waxa filiya bulshada cabashada waxa kamid marka in ceelash ay waxa weeyaan ay qodeen qayb kamid ah qaybta dawladdu qalabeysan qaybta kale oo wali qalabkooda ku jira lagu sii caday in maartay wax la yiraahdo ay caqabad ka jirto oo dareemi kartaa in qofkii bamkii motorkii waxa weeyaan wax la yiraahdo shirkadii fuliyay inta badan waxa weeyaan kontraadka ka qaatay bulshada waxa weeyaan fuliyay baa askale inta badan marka cabashaha way jirtaa insha Allah waxaan rajaynaynaa hadda waxa u dambeeyay maalmahan dawladda birkoormid hadda magaalada dhexdeeda la soo waxa weeyaan ay xarig laga jaro iyo wax la yiraahdo sideedaad oo bulshada qoto aha arjeen insha Allah xafiiska biyaha herdegan ku jawaabi doono oo anaguna cid qoyska marba la wadaagnaa si guud bulshadu waxa la kala ay maartay ku amaanayeen oo